السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. walaalayaal dhammaantiinna waa idin salaamay meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan. waxaan doonayaa maanta inaan soo gudbiyo haddii allaha awoodda leh noo saamaxo 3 aayadood oo gebi ahaanba burburinayo sixir kasta in kasta uu leegyahay xooggiisa. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigayaa dekan macnaha burbur buu ka dhigayaa iyo midaanan shaqaynaynin. walaalayaal intaanan u gudbin 3 aayadood fadlan waxaa idinka codsanayaa inaad sabscribe noo saarto, laygtana aad noo riixdo. haddaan galo hawshannadii aan u soconnay, ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ayuuna siiyey, waa kalaamullah. waxa weeye wax kasta oo loo baahan yahay qur'aanka kariimka ayaa ku ah. haddii ay noqon lahayd dhaqan, haddii ay noqon lahayd dawo, haddii ay noqon lahayd caafimaad, haddii ay noqon lahayd inaad ka hesho maaragtaye firfircooni akhrintiisa iyo ku dhaqankiisa, wax faa'iidooyin fara badan oon la soo koobi karin ayaa laga helaa walaalayaal. aayad kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey xigmad bay ku fadhidaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa ku leeyahay, wanunazzilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmu'miniin. qur'aanka waan soo dejinnay wax maaragtaye daawo ah dadka mu'miniinta. marka walaalayaal sida aan ogsoonaano ogowna waxa wax caafiyo waa allah subxaanahu wa tacaala keligiisa. qof kaloo ku caafin karaa ma jiro aan allah tabaaraka wa tacaala ka ahayn. marka yaqiintaadu hagaaji, qalbigaagu ha noqdo mid allah subxaanahu wa tacaala ku xiran. qalbigaagu ha noqdo mid ayna awooddii ilaahay inay ka weyn tahay wax kasta inaad aqoonsan tahay baa laga rabaa. inaad ilaahay kugu caafinayo aayadaha qur'aanka ah ama qur'aanka kariimka ah inaad iyadana aamintaa la doonayaa walaalayaal. haddaan u gudbo aayadaha, waa 3 aayadood oo gebi ahaanba burburinayo ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku burburinayo wax kasta oo sixira oo adiga ama jirkaaga ku jiro ama gurigaaga ku jiro. aayadda koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay, bacda acuudu billahi min ashaytaani alrajiim, bismi illaahi arraxmaani arraxiim, falamaa alqow qaala muusaa maa ji'tum bihi asixr ina allaha sayubtiluh ina allaha laa yuslixu camala almufsidiin. aayadda labaadna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay, waalqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacuu inamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu asaaxiru xaydu ataa. aayadda saddexaadna allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay, waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuraa. walaalayaal 3 aayadood buu akhrinayaa qofka xanuunsan nafsadiisa inuu akhriyaa wanaagsan. haddii loo akhriyana waa la mid, balse waxaa aad iyo aad u sii fiican inaad adiga nafsadaada ku akhriso qur'aankaas biyo kadibna aad cabto. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kugu caafinayaa biidni illaahi tacaala wa biamri illaahi tacaala. waxaa kaloo la doonayaa aayaddaas ama 3 aayadood aroor kasta inaad 7 jeer akhriso ood ku tufto biyo kadibna aad cabto. galab kastana sidoo kale inaad ku akhriso 7 jeer oo aad ku tufto maaragtaa biyo ood markaa cabto biyihii. waxaad wadaysaa arrintaa 7 maalmood oo xariir ah. waxaad wadaysaa arrintaa aan kuu sheegay 7 maalmood oo xariir ah. ka soo bilow maalinta aad joogto markaa midday dooni ha noqoto ilaa maalintaa maalinteeda kale aad ka soo gaarayso 7 maalmood. waxaad samaynaysaa aroor iyo galabba ducadaas macnaha qur'aanka kariimka ama 3 aayadood ayaad akhrisanaysaa waadna ku tufaysaa kadibna waad cabbaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kugu siinayaa caafimaad
biidni illaahi tacaala wa biamri illaahi tacaala. sixir kasta oo ku haayo in kasta uu xooggiisa la egyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa burburinayaa oo wuxuu ka dhigayaa dekan buu ka dhigayaa mid burburay oo hawada raacay buu noqonayaa sixirka isagaa. aad baan idiin salaamaya walaalaha aan jeclahay. waxaan ilaahay u weydiinayaa qof kasta oo janalkan sabskribe saaray laygtana riixay ilaahay inuu muraadkiisa khayrkaa midigta ka saaro, in ilaahay dembigiisa iyo dembiga waalidiintiisa ilaahay inuu dhaafo, inuu ilaahay cimrigiisa dheereeyo, ceebtiisana uu asturo, camalkiisana uu suubiyo, dad iyo dunyo iyo diinna mid barakooba ilaahay inuu ka dhigo. aad baan idiin salaamayaa walaalaha aan jeclahay meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.